بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيكتوريا سنتر خاكhaanyasha meel baad joogtiin. kuwa weyn waxaan leeyahay walaalayaal si fiican ii maqlay maadeerayaal nimalii walaalayaal kuwa dhalinyarada waxaan leeyahay jiilka saddexaad G3 aabayaal si fiican ii maqla aabo si fiican ii maqla jiilka afraad waxaan leeyahay awow si fiican ii maqla maanta waxaan ii hayaa mawduuc noloshiina ku saabsan iyo health iyo caafimaadkiina iyo wax walba ku saabsan nigalama hadlayo maanta siyaasad reer Somaliland waxaan ka soo hadlay magacaabistii musabixi iyo wax walba ka soo hadlay waxaan rabaa dhalinyarada jiilka saddexaad inaan sheego waxa loo comprehensive leeyahay aan Talyaaniga Francisca comprehensive waxaan qusayo amuurihiina ugu fiican aan sheegaya maanta فيديوغي مانتو وحو كسليسن yahay healthcare فيديوغي وحو كفليسن yahay feeling فيديوغي وحو كفليسن yahay faith waxaan rabaa dhalinyarada inay noqdaan caafimaad gen culture wax walba technology iyo dad noqday dad caafimaad qabo human being marka maanta dhalinyarada wada smartphones bay wataan waana iga qaata Answer the phone by left hand ear. Telefoonka markaad jawaabis dhegtaada midig ku jawaab. Waa sunnada midig ku jawaab. Waxaan kaloo neeranayaa don't take medicine with cold water. Dawadu ha ku cabin biyo qabow, ku cab biyo caadi ah oo natural ah. Ku cabin biyo qabow. Biyo kulul ha ku cabin. Don't have meal after 5 o'clock. قراعة والروح قضي هدا قضيني شنطة قلب afternoon شنطة قلب حكتم بي ميلها عن دركت بدن ما في عنا وعكلوني شيء drink more water morning less at night بيب بدن عبس وحدي إلا لتر لبل لتر 6 لتر 5 لتر بيه بدن عبس وحدي لكن عبينك بيه بدن عبينا وعن كلوني شيء best sleeping is from 10 p.m. to 4 o'clock هردada ugu wanaagsan waxa weeyaan 10 habeenimo ilaa 4 subaxnimo maxaa dhacay salaad subax soo galayso don't lay down immediately after taking medicine. هره هاوس حن مركا دواء عبتين اسكي إلالية دواء مركا عبتين هره هاوس حنني دواء مركا عبتين هره هاوس حنني وحكا لنا وانيشة تلفوناكم مشغول سنتين سمارت فون when battery is down the last bar down answer the phone. Battery markuu ka dhaco telefoonka jawaami. The reduction of 1000 times strong markuu gaaro telefoonka daar jawaab. Dami telefoonka markuu battery ka dhaco. Waxaan kaloo nigu waarinayaa maalin walba kuwa Yurub jooga. Daily eat 1 apple. دكتور مبانيس حبة تفاح عن مانو والبواد أو دا آل ديات كسر كذا كرتا حبة تفاح مانو والبعد دكتور مبانيس وحكرا كده داشين daily 5 almonds هنا almonds وحوي لوس كان دوبنا ولوس كوكلا هنا أما لوس هنا no cancer نجمع داعي واحد معلومة اللي كنت داشين مركز صوت 16 daily 1 glass milk عبا بون problem ما يلنيسين هدات عبتين عانا بدن هبين كي مركز سيحانيسين أما الصراحة دي لفين محنونيا واحد كلو آدي آدو ماذا بيسانو رسولك كنت دردارمي daily واحد عنتين حل أما اللابو أما السدح
أما الشن دات تمر تمرت عيك نجبت بعدين يساوي كنس ضعيف من الخمسين تمرت هو تمر وكسوق خالصة تمر عنا waxaan kaloo aad nigula dardaarmaya nigu waaninayaa daily waxaad dugtiin 3 waqti prayer salaat alwasta salaat subxiga ilaaliya salaat casarka ilaaliya salaat cisha ilaaliya 3 salaad ilaaliya daily waxaan kaloo nigu waaninayaa dhalinyarada aada ugu waaninayaa daily 8 hour sleeping sameeya 8 saacadood seexda maalintii habeenkii marka waxaan aada iyo aad halkan nigu waaninayaa khabyaalada waa sheergaraysiin cay waa sheergaraysiin maamalyuun waa sheergaraysiin saliidii oilif waa sheergaraysiin waxaa intaa sheergareeya iga qaata dhalinyarada waxaa oranayaa intaan soo sheegay waxa ugu muhiimsan ilaaliya salaat alwasta waxaad ilaalisiin 3 salaadood oo salaatulwasta salaatulwasta ilaaliya markaad ilaalisid daily salaatulwasta waa arrin muhiim waxaa kaloo nii raacinayaa salaat subxiga bidimit illaahatiin casirka sidoo kale cishaha sidoo kale waxaan kaloo nii raacinayaa daily maalin walba 1 limon cuna hal liin cuna faadkeeniga ilaalinaysa cayirka waan soo sheegay daily waxaa iri caanaha ku dadaala habeenkii caba maalintii caba daily hal glass milk caba problem of lafaha ma qabtisanaysa timirtuna waa muhiim timirta rasuulku wuxuu yidhi 1 cun ama 3 cun ama 5 cun iyadana timirta waxay ka ilaalisaa weak ma naqanayso waxa laakiin giddi waxaan soo sheegay ugu muhiimsan 3 prayers salaat alwasta ilaaliya waa salaat subax salaada casrka salaada cisha dawa haddaa cuntidna horaa ka seexan waxaana seexataa 8 saacadood maalintii waxaana niga dalbanayaa inaad u sheergaraysiin asxaabtiinii qolo walbo message ugu dirtiin anigu waxaan ka fikirayaa caafimaadkiin haddii la helo ubad caafimaad qabo haddii la helo ubad 5 waqti ee salaada ilaaliya cibaadaysto markii nin salaat wasta ilaalin karo ma leh ilaa ninaan ahayn oo 5 waqti dukanayn waqtigaa haddii kale ee aada naqatiin dhalinyaro gacanta midig wax ku cuna gacanta midig biyo ku cabo gacanta bidixda ku istinjooda ee ilaaliyo jasadkiina ilaaliyo caafimaadkiina ilaaliyo waxaad haysatiin sunnat allah wa rasuul sunnat allah rasuul caafimaadkiina ka hadasha sunnat allah rasuuluna waxaa waaye diin ahludiin baa diin rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi diintan wuxuu soo degtay islaam waa in dadka kaa muslim galaan afkaaga yadaada gacantaada wax walba wuxuu kala yidhaha diin almucaamila waa mucaamilad waa tijaarad waa xaraana iska ilaalinaysa waa zakaad bixinaysa waa tax waa prayer waa wax meel walbay diinta soo gelaysaa waxa ugu weyn oo kale diinta soo gelaysaa waa nadaafadda xataa nin meeranayo nin kaada iska dhaqayo nin istinjoonayo nin weyse qaadanayo nin wax walba subinayo hadalkeygu wuxuu ku socdaa dhalinyarada jiilka saddexaad giddigooda somaliland keliya maha we are khaankhaanyasha we are the world globalization I'm the happiest man maxaan happiest man waa ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan cilmigeeni lili wadaago waxaan rabaa dhalinyaro badan inaan la hadlo waxaan rabaa kuwa muqdisho inaan la hadlo kuwa puntland kuwa galmudug kuwa meel khaasatan dhalinyarada jabuuti aad bay dhegeystaan inaan wax u sheego ma baahno way ka horeeyaan dadka
reer somaliland ku naqnaqdaa oo si fiican uga soo hadlay muuse bixi wuxuu magacaabay wax walba qabyaalada naga daayay qabiilku waxa weeyaan jariimada ugu weyn qabiilku iyo iskala qaadqaadka waxa weeyaan adduunku wuxuu ka yahay wax oo not human rights ah qabiilku waxa weeyaan wax ah hypocrisy dulmi yasid kibriya looma baahno rasuulka calayhi salaatu wasalaam carabta qabaayili wax walbay ahaayeen an tacaarafuu ilaahay qur-aanka ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu ka hadlay si weyn buu uga hadlay oo weyn oo globalization wuxuu yidhi ma fish farakh bayna alcajami waalcarabi waalxabashi wanasaara waxay ku kala duwan yihiin maa ilaa bitaqwa allah marka waxaa la oranaya itaqullah dhalinyarada somaliland qabyaalad waa ku dheertiin qabyaalad kasoo noqda dowladiina ayida musabixi ayida wax jeegaan la dhaho ma jiro wax garxajis la dhaho ma jiro wax siweeraaba la dhaho ma jiro waxaan ummad muslimna afdal umma fi lumma nahay wallahi billahi tallahi waa ni jeclahay lacagna laguma siiyo maxay u qasbayeen wax nii sheego yawm alqiyaama waa la weydiinaya waxaa la yidhi cilmigaaga maxaad ku qabatay maxaad sheegtay maxaad qabatay taasaan nigu sheegaya waa ni jeclahay khaasatan dadkaan nigu jeclahay dhalinyaradaan nigu jeclahay shacabkaan nigu jeclahay qaran baan nigu jeclahay wax walbaan nigu jeclahay waxaa tiri waddan ammaan reer somaliland hal wax anigu waa iga dardaaran hal wax waa iga dardaaran adduunku rasuulka calayhi salatu salaam biniaadam kulli biniaadam qataayin khayra minhum mutawaabiin adinku ka tooba keena qabyaalada waana lagu dilay ka tooba keena ilaahay qur-aankiisa ku sheegay wuxuu yidhi ibliiska wuxuu ku jiraa dhiigga maxaa ibliis looga badbaadi karaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim shanta waqtiyo la dukado faatixada la akhristo salaada la dukado waqtigeeda la ilaaliyo wax walba ibliis waa ka reynayna marka waxaan nii sheegayaa ittaqullah ka tooba keena qabyaalada kullu ibni aadam qataayin khayra minhum atawaabiin an tooba keenno an somaliland naqano an ummad muslim naqano ummad walaalo naqano hadday somaliland guursato soomaaliya waxaan u qaban karnaa maanta somaliland ma sahlno waa wada ibliisiin bay naqdeen laakiin waxbaan u qaban karnaa haddaan ilaahay la kaashan marka waxaan leeyahay anigu waxaan nigula dardaarmayo bal jariba nin walbaa subiyo 3 weeks telefoonka dhegta midigta ku jawaab waa sunno don't take medicine with cold water ha ku cabin dawada biyo qabow don't have meal after 5 o'clock ha cunin raashin badan 5 galabnimo wixii ka dambeeya cun galabtii doorkii qaday quraaco inta cun drink more water in the morning biyo badan caba subaxdii less water habeenkii hadda